waxaan suurtagal ahayni ma jiraan ilaa aad adigu isku daydo. Goobjoog ka noqo. Sheekadan ciwaankeedu yahay suurtagal ma aha in waxaa la sameeyaa. Xaaladda koowaad, Maxamed ayaa yidhi, ma u malaynaysaa inaan birtaa culus qaadi karno? Xasan ayaa ku jawaabay, maya, ma qaadi karno, aad ayay u culus tahay. Xaaladda labaad, Sakariya ayaa yidhi, waxaan qorshaynayaa inaan dhaqso shaqo u helo markaan sidaa u qalin jabiyo. Yaxye ayaa ku jawaabay, waad riyoonaysaa, camal la'aantu heerkii ugu sarraysay ayay maraysaa oo qofna shaqo degdeg uma heli karo. Haddii aad ahaan lahayd qof dadkan wada sheekaysanaya dushaa ka arkayay, waxaa laga yaabaa in xaaladda koowaad aad u malayn lahayd in birtaa la qaadayay ay aad u cuslayd. Xaaladda labaadna aad u malayn lahayd in camal la'aantu ay dhibaato aad u ba'an ku hayso waddanka. Xaqiiq ahaanna fikirka aad istiri waa mid qaldan. Xogtoo buuxda. Si aad u wada fahanto sheekadan, waxaa jirta xog ay tahay inaad ogaato. Xaaladdii ugu horreysay, Xasan miisaankiisu wuxuu ahaa 40 kilogaram oo keliya, weligiina jimicsi hore umuu samayn, halka Maxamed uu ahaa nin murqo waaweyn leh oo si fiican u dhisan. Xaaladda labaadna, Yaxye markii uu qalin jabinayay wuxuu ku qalin jabiyey darajo aad u hooseysa, muu lahayn xirfado kombiyuutar, manuu garanayn luuqado qalaad. Xagga Sakariya uu ahaa qof si adag wax u barta oo leh tayooyin fiican iyo xirfado badan. Bal haddaba maxaa dhici karaa haddii Maxamed uu rumaysto Xasan oo aanu isku dayin inuu birtaa qaado? Amaba maxaa dhici karaa haddii Sakariya uu rumaysto Yaxye oo uu ka rajo dhigo inuu shaqo raadiyo? Dadkaasi weligood heli maayaan waxay rabaan, xataa haddii ay heli karaan. Maxamed isku dayi maayo inuu birtaa culus qaado, inkastuu awoodo inuu qaadi karo. Xagga Sakariya inta ugu badan uu ka rajo dhigi doono inuu shaqo raadiyo, iyadoo camal la'aantu ay carqalad ku noqon doonto, inkastuu qualified yahay oo shaqooyin badan oo ku habboon uu heli karo. Qof kasta wuxuu nolosha ku sharaxaa aragtida uu ka haysto. Waxaynu ugu dambeyntii arrintan ku soo gabagabayn karnaa in qof kasta uu ku sharaxo nolosha sida uu u arko, isla markaana uu la iman doono sharaxaad uu dadka kaga dhaadhiciyo inuu isagu saxan yahay. Qof ku guul daraystay inuu shaqo helo ayaa wuxuu kuu sheegi doonaa inay adag tahay in shaqo la helo, sababtoo ah camal la'aan aad u badan. Qof adkaysi iyo dulqaad aanu lahayn inuu xirfad cusub barto ayaa kuu sheegi doonaa inay aad u adag tahay in xirfaddaa la bartaa. Qof awoodi waayey inuu balwado xunxun joojiyo ayaa kuu sheegi doonaa inaanad balwad joojin karin. Si sidaa la mid ah, qof awoodi waayey inuu jidhkiisa dhiso oo jiim galo ayaa kuu sheegi doonaa inay adag tahay inaad miisaankaaga dhintaa. Haddaba, maadaama aad hadda ka war hayso arrintan, waa inaanad dareen aad u badan siisin fikirka ay dadku wax ka haystaan, sababtoo ah haddii aanu qof wax samayn karin, macnaheedu ma aha inaanad adna waxaa samayn karin. Haddii aanu qof shaqo heli karin iyadoo ay ugu wacan tahay tayooyinkiisa oo liita, macnaheedu ma aha inaanad adna awoodi doonin inaad shaqo hesho. Ka soo qaad in hadallada ay dadku ku odhanayaan ay yihiin fikradahooga u khaaska ah ee ay arrin ka haystaan, balse aanay xaqiiq ahayn. Haddii kale waxaad ku guul darraysan doontaa wax kasta oo ay saaxiibadaa ku guul darraysteen, waxaana dayici doontaa fursado badan oo aad heer sare ku gaari karto. U sheeg qofka inaan si isku mid ah alla idiin wada abuurin, oo aad ku kala duwan tihiin xagga awooddiinna, tayadiinna, xooggiinna, xirfadihiinna iyo daciifnimadiinnaba. Haddii uu isagu wax ku guul darraystana, aanay macnaheedu ahayn inaad adna ku guul darraysan doonto.